الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي بكلي ما هذا له وحن شعره ما أنت عينه يدلو ذاقنه شعب كثير سومان لا يبدي جدلا ولا هذا لو ما ملقاتي وحكوا صورنا معه وأكتينه وحن إعلامنا وطبعا آدي روحهم هاي وشعب كثير سومان كره الجلين يا ما أنت وقت حن شوجه waxaan dawladdu abuurtay aynu imika muddo 5 bilood aan ku dhex jirnay maantana ku soo dhamaaday inaan mudaharaad dhigno markay waddo kasta naga xidhantay oo shacabka reer Soomaaliland ka wakiili ay ka marxaati yihiin waxaan ku kala socon jirnay sharciga oo ilaalino iyo tanaasul iyo wada hadal iyo ummadda oo loo naxo intiiba way ka tagtay maanta dawladda Soomaaliland madaxda Muuse Bixi marka ay waddo kasta naga xidhantay magaalada saay guurtidii odayaashii dhexdhexaadka ahaa labadii gudoomiye intaba sidii ruushka oran jiray niyad maya wax kasta bari shuuci ahayn dawladdu wax kasta maya jiraan waxay naga fursan weyday in qala mudaharaadkii aan hakinay in odayaasha ixtiraamnay inaan sii deyno oo shacbigeena in badan taageerayaashoodana in sugayeen warqad baan qornay soo sharcigu sheegayo 3 cisho ka hor waqti la dhigayo mudaharaadka 5 cisho horteed baan dirnay aantii xaday ayaan qornay khamiisna waan dhignaa hadii ilaahay yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha oo ogeysiin leh mudaharaadka waxa inoo fasaxay dastuurkeena waa qodobada ugu waaweyn ee xuquuqda bini'aadamka shacbiga iyo xoriyada qowlka ay ka mid tahay taariikhda waaweyn xeer baa jira oranaya ogeysiin hala siiyo xukuumadda ogeysiinta maamul madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin warqad buu noo soo wuxuu noo yiri bidorto aynu aragno markaan warqadii loo geeyay wuxuuna la ballamay doraato in 9 subaxnimo gurigan ciro aan ku ballan 9kii markii ma tahay buu yiri arrin baa degdeg waa ay timee berito oo shalaheed 10ka xafiiska ay noo ahaato warqadda waan soo qoriyay sidii baan ka yeelay warqad buu noo keenay shalayto uu leeyahay aan isku nimaadno 10ka iyo xafiiskayga sidii baan ku tagnay anigoo gudoomiyaha isbahaysiga ayaa ka haystay afhayeenkayga iyo ku-xigeenadeeda mid ka mid ah oo ku jira gudoomiye ku-xigeenkii wadaniga xamarji si fiican oo gobonimo leh شافي عمو نسيه في وناسو الباب كنا جهوريمي سن ملقله أيون مقابل وعلى فريي أفر وسير أو كمدي هاي وسير كساكن السلوك إن كورة وسير كسكارسينته عبد الولي si fiican baan ugu qorsheynay wixii waxaan ku yeeray sayn umana shaqayn lahayn mudaharaadka khamiista security-ga iyo positionis ku ka dhici lahaa maadaama xeerku nasiinayo inaan cayino positionis waxaan ku heshiinay markaa inaanu wuxuu soo jeediyeen أنا waxaan doonaynaa warqadii ku taalay inaan ka dhigno meesha khayraadda la yiraahdo iyo beerta xorriyadda waxa noo sheegay beerta xorriyadda
in dad had qaar ku ganacsadaan dadkii suuqa ka dhamaaday ka gubtay waanu ka tanaasulnay meesha khayriyada ayaan ku adkaysan lan waxa weeye mudaharaadka waxa lagu dhigaa public areas centerska meel dadka ilaa iyo oo habeen dhexdaas waa kidee halkaa kula kulmay khayriyada dhalinyaro badan iyo wixii markaa labada xafiis ay leeyihiin xafiisyadiina ka dhiga bay ilaahay ayaan ka dhigan may xafiisyada ka dhigaysaa waxaan ku heshiinay inaan isku soo noqono maanta horta in wiilku noo yeedhay warqadda noo soo diray shalayto ilaahay isla habeennimadii uu shan xidhay la xidhay ma garanaysaa wadaniya waxaan nidhi aan wada hadalayo waan xidhayaa adduunka ma dhacdo marka wada hadal la bilaabayo jawi wanaagsan baa lagu abuuraaye jawi la xumeeya ma xalaytan haddana wax qaar kala la xidhay wadaniya marka waxaa muuqataa inay waxaan nidhi war wax xadhigga aan sharciga ahayn waa wixii aynu ka dagaalanay wixii aynu ka dagaalanay inagu isku isticmaalina ayaan ku yiri dadka la soo daayay waxaan ku heshiinay inaanu maanta isku nimaadno 9 subaxnimo xafiiska si aanu u yimaadaan taliyayaasha booliisku annaguna aanu diyaar garano ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo nabadgelyada kala shaqeeya marka aan Britain nabadgelyadii aan ka shaqeeya saasaan ku heshiin saaka intii goobihii ayaa xafiisyadii ay shalayta ogolaayeen ayay diideen waxay ilaahay waxaan doonaynaa 6 gobol 5 gobol ah caasimadu ku jirin waxa soo saamiyay barasaabyadii in laga dhigo laba burco iyo meesha la yidhaaho saaxil ucid ayaa xafiisyadooda meel bannaan leeyihiin oo laga dhigi karo 3 gobol ah sool iyo sanaag iyo awdalla waxa leh wadani ayaa leh in meel laga dhigi karo marka taa aan ka shaqeyno waxaan ma khayriyooyinka ka security badan waxaan horta doonaa waxa weeye waxa mustaqbalkii dalkeena iyo nabadgelyadiisii iyo hebel sayiri oo isku muuqana oo halka inaga dhigay 30 sanadood baan ku yiri waxa yeelisaan khayriyooyinka burco iyo ceergaabo iyo boorma waa arkay halkaas u security fiican halka aan ka dhigno oo waxa weydiisan barasaabiyaashiini bal meelaha xafiisyada iyo khayriyooyinka taagaagsan nabadgelyo fiican yani waxa aan iskala tagno koodi iyo barka aan isku soo noqono ana waxaan la soo tashanayna qoladii madaxdii wadani qoladii wadana ku yimi walaal waxay la qaateen oo ilaahay khayriyada haday diidaan 5 gobol waa ogolay khayriyada haday diidaan Hargeysa sidii shalay sheegeen ay warqadda ku soo qoreen xafiisyadeena Hargeysa aan ku sameeyay wata warqadii waan ii soo wada diray TV-da waxaan ku soo diray electronic marka meeshii tagnay ay maanta ku noqonay koodii barkii aynu arintii marino isku hayno ma ka daayo oo xafiisyada ka daayo waxa ka dhigtaan xafiiska magaranaysaa New Hargeysa وحفيزك نيو أرجيسة وداني ما نري مربى أنت جو حنقول ورماشي ما هليكوبتر بقى كنت تكتم ما كوين ميلا مرة ما شفتيه يا ماشي أشرت وقالتين محلا هل كان ما كان مرنا نركب ذي وسيرة ذي واحد سوى شيء جو حيري وشيء تاني لا تشوفين ورتمان أنت ما لقى هذا ورمحل ما أنت نقول سعيدي نمانكي
مع وزيركي ما قلنا شيء تو هذا ساك يقولها هذه خميس دولة هاي أنا لا خميس ما أنا بكارسن أنا ور ما أنا كمان هتو بريتو خميس أنا راح أقرأ ولا بدلي وزيرك هذا الكيسوات ما أنت كودي بركي سرون هناي إلا يوم مركي عن صوب حي عن كصوب حناي وحن كود هالني وارمان أنتوا إنه كويشيني ما هدي بها إنه علينا خميس سبت كريجة وغير سوي كده وقع هالك ما كان مريسو أنا هو نسكت جاي قدومي حسبيه أضيف يسوع ما له نقول وحن كل ورمان ترجع ليه ولي أفر سنة بالباتشوتي ولي ما ولي تناسل ما يسميه ور مدحه تناسل ما يسميه والله قب حصلا تيارين هالك هلا بدينا نجي كل مية إنه كل قصرنا إنه سوى رئيسيه دور شد مدحوينه قدام بيسته ديجانك وإنا جاي هلاي أنا أوران سوي ما كنت جناهان لما نوى سكوريرو وين قلحيا أنا أوران هي سكورير بات هو يقلحيسته ورح الشوطة سي أنا أقول هذا توم وسير بكوي مال توم سأنا ومرنا أيام واحد استعماري دبلوماس شانريس رجعان كوجي حلا حجلاين ورمشي يعني كريتك هذا لك على ما تبغى الثاني مدحوينه جارسي وحترها وسير كلا سو هذا وحترها يانا كركين الحمد لله شانريس كبشقي iyagoo diq iyo halkii taagan oo qof 10 kaan in shanba hadasho mid qura oo oranaya war way hagaaseen waxa weyn ku heshiinay naga socodsiye ma jirto ayaa telefoon soo dhacay telefoonka ma ku soo dhacay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa la kacay qolbu la galay uu soo noqday wixii isku kaayay daaya telefoon khayr qaba madaxweynihii uu soo diray waana ka soo baxay shan iyo konton mirir ayaan dibadda joognay soo galay aan soo galay wasiirka oo faraxsan hagaagsan uu si fiican buu u baanay maxamed kaahin marna waa maxamed marna waa kaahin abiyo kalo uu taliya si fiican uu taliya kiyo kaahin axmed ayuu hadlo wuxuu yiri gudoomiye waan ku sharfina adaan awooda wax u yeelnay intaasoo tanaasub baan ku sameynay taasaan sameynay waa mahadsantiin maantana maalintii waa kuu daynay khamiistii ilaahay khayr u siiyo warqadan baan markaa qornay warqadan ku dhaqma warqadan markaa xoonaysaa shantii gobol sidii hore ay noo siiyeen ayay yidhaaheen anna ogolaanay inaanu meelaha xafiisyada ka hadalno tii hargeysay bedeleen waxay yidhaaheen tii hargeysa waxaad tagtaan duruqsi baan u bixi xafiiska duruqsi matalan duruqsi xadkay ku taalaayo waa duruqsi baan ku yidhi war meel la maraayo ma jirto maye taa qaata oo adnad wadiga naga adkaadee ee wadani ka adko wax aqli gala laga adkaadahay wax aqli gala waxaan suurtagal ma ahe inaga daayo ilaa hadda waxaad noo soo kari weydeen arrintaasaan ku dabaaldegin markaan arrintii eegnay waxaan noo qarinay inaanu labada warqadoodba wasiirka inay ka timiyeen inaan tii hore ee xafiisyada sida gobolada kale ee shalayto ay nagu qasbiyeen in la warka daayo khayriyada in anti qaadano ayaan doonayna marka waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland xil weyn bayna saaran dadkeena inaan maanta ilaalina weey waa inaan ogaanaa dadkeena maanta si ku nool yihiin inaga way mutaysan biyo la'aan iskuul la'aan caafimaad la'aan shaqo la'aan iyo in dhexdooda ku murano $120 milyan ayaa biyilay noo sii hargeysa 60 milyan waxa bixiyay waxa lagu soo sameeyay biyaha geedeeda 50 milyan waxa bixisay Dubai Imaaraadka waa xun weyn 10 milyan dam marka la socdo laga leexdo berbera
ayaa lagu bixiyey waa 120 milyan ayaynu ka oomanay haddeen nahay reer Hargeysa halkeenu tuulooyinkeena ka cabiya taayirka aynu biyo gelin lahayn 30 sano dawlad baynu iyo laba horta tamarteena waa taa tamarteenu waxaynu haysanay tanaasul iyo isqabsasho iyo isku tanaasil iyo alxamdulillah marka dambe heshiiye shantaas sano ma heshiin ma qoro marka waxaan leenahay waa raali naga ahaada dhalinyarta dadka maciishada ku kordhay cid allaay cidii tirsanaysay ee lahayd tolaay dawladnimadeed mudaharaadkaas ay noo noqdo mudaharaadsan oo dadka aanu baranno inaynu mudaharaad inaga iyo booliiskeenooda nabadgelyo ah aan samayn karno dadka masaakiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala shanta xabadoo muuska iibinaya dumarka ah ee maanta ka xidhin aan Britain tageen dhibaato kale ugu soo sameeyay wax la wax cid wax boobisa qabta cid wax xumeynsa qabta iyo inaan si dad ilbaxa oo dalkooda iyo dantooda daneynaya laakiin dareenkooda tusiya oo dawladda waxa lagu gartaa wada aragteen White House-ki baa lagu mudaharaadaya waxa dawladda shacbigeedu markay naqaska iskaga sii daayaan inay tusaan shucuud halkaas ay dawladdu markaa ku qaadataa go'aan ay tanaasul keento tanaasulkaasna ka doona insha Allah taala in ku soo dastuurka ayaan doona insha Allah taala inaan mudaharaadka wax kale oo cunfi oo damo ka dhabtaan ay jireen wadada ku soo noqdo ayaan ilaahay ka barnay subhanahu wa taala ingana intaana ilaahay ku ducayno wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa insha Allah waxaynu dhac doona mudaharaad qiimo leh oo cidna aan ri ku jabin insha Allah taala wassalaamu calaykum بس كصعدة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما شعب غير سومالي لاند ضانك السلام يا هي صحافة ده مضحى بنار أصلا شو حدونا يا دور قضب كهرسي سومالي لاند وحي مريسا مرحلة إسقويس oo ay fananayso tiir dheer oo ay tahay in lagaga baxo wada tash wax wada lahaansho sinaan cadaalad iyo qabsoomidda doorashooyin dimuqraadi ah oo ku qabsooma xilligooda oo ay ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada madaxweynuhu waxa uu soo xidhay albaabadii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aynu ku soo caanamaalnay muuse wuxuu isu tolayaa shaab isaga leeg oo hortiijiraba loo diiday muuse wuxuu doonayaa in Somaliland ka dhigto kuna xukumo sida uu jecel yahay ee uu kursiga ku sii haysan karo taas oo aan sinaba u suurtagelin muujinta dareenka shacabka iyo doonista dadweynaha waa xuquuq dastuuri ah oo cid ka qaadi karta aanay jirin dhammaan gobollada taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah sidii ballantu ahayd berri waa khamiis oo maalintii ay u ballameen inay dareenkooda si nabada ku muujiyaan berri waa maalintii bannaanbaxa hubka ugu weyn ee aynu sidanaa
shacbi ahaan waa siidhi waxaynu ku afuufaynaa doorasho diidka waxaynu ku afuufaynaa cadaalad darrada iyo dulmiga waxaynu ku afuufaynaa caburinta xadhigga sharci darrada ah iyo afduubka muwaadiniinta loo geysanayo gaar ahaan mas-uuliyiinta axsaabta mucaaridka ah iyadoo aan loo aaba yeelin labadii cisho ugu dambeeyey waxaa xorriyaddooda laga qaaday 13 muwaadin oo isugu jira mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga waddani oo aan waaran qabasho loo keenin loona sheegin eedo loo haysto waxa la yaab leh oo ugub ah in dadkaas la xidhxidhay laga qaaday Hargeysa iyadoo aan lagu wargelin qoysaskoodii iyo carruurtoodii baadhis kadib waxaa la soo xaqiijiyey inay ku xidhan yihiin degmada Baki ee gobolka Awdal siidhigu waa carooga dulmidiidka liiska dadka xidhan marka ugu dambaysan akhriyo doona waxaynu ku afuufi doonaa siidhiga jirdilka iyo gaboodfalka loo geysto muwaadiniinta baraha bulshada ayaad ka daawanayseen inantii waxaa ka daawanayseen baraha bulshada sidii xabaqnimada ahayd ee loo dilayay ee loo garaacayay xildhibaan Fuud waxaa ku arkayseen muwaadin xiniin laga saaray dhaawac soo gaadhay awgeed waxyeelladii kala duwaneyd ee soo gaadhay xogay iyo cawil galayd xabaddii noolayd ee Manuur Axmed Cigaal la taliyahayga meediyaha ku dhacday iyo dhammaan inta aanan xusin ee dhaawac ama dhib soo gaadhay muwaadin kasta oo jecel in dalkan la wada yeesho oo laga badbaadiyo gacanta keligii talis abuurma waa inuu soo baxaa beri waxaa soo baxaya qof kasta oo ay taabatay nolosha sii adkaatay shaqaala'aanta iyo rajixumada dhallinyarada ku habsatay sicir bararka shidaalka iyo laydhka cirka isku shareeray arrimahaas oo dhammaantood ah wixii xukuumaddan loo doortay inay wax ka qabato hase yeeshee ay ku fashilantay iyadoo ku mashquushay muranno madhalaysa iyo la dagaalanka axsaabta mucaaridka waxaa waajib inagu ah inaan dareenkeenna ku muujinno duruufaha adag ee ina haysta waa xaq dastuuri ah waa xaq aad leedihiin oo dastuurku idiin damaanad qaaday mudaharaadku salmiga ah waxaan kula dardaarmaya dhammaan muwaadiniinta ka qayb qaadanaysa isu soo baxa nabadeed sidii kii hore aynu samaynay 9kii bishii Juun inay nabad ku soo baxaan waxaa waajib ah ku dhammaanteen in saaran inaynu ilaalino nabadgelyada ciidamada ammaanka waa inaynu la shaqaynaa dareenkeena si nabad oo xasiloon ayaynu ku muujin doonaa insha Allah walaalayaal xogana soo gaadhaya waxay sheegayaan in xukuumaddu dibadbaxayaasha ku dhex dari doonto qaswadayaal dhibaato u geysta shacbiga ama ciidanka ama labadoodaba kuwaasna aad uga feejignaada oo haddii aad aragtaan ama ka shakidaan ciidanka ammaanka u sheega fariinta ciidanka ammaanka walaalayaalow waxaad tihiin haybaddii qarankani lahaa waxaad tihiin astaanta matalaysa calanka iyo ciidda waxaad tihiin kuwa lagu seexdo waxaad tihiin inamadayadii shacabku wuu idin xaq dhowraya karaamo iyo kalsooni buu idinku qabaa taas oo ku sii haysan kartaan
in aan laydin adeegsan siyaasad iyo arrimaha loolanka xisbiyada ka dhexeeya. ciidanku wuu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo loolanka oo dhan. kii shalay ka maanta jooga ama ka berri imanaya dhexdhexaad baa u tihiin ee ka feejignaada amarada khaldan ee siyaasadaysan. xukuumaddani way tegaysaa, ciidanu inna waa soo hadhaysaan. waxaad u shaqayn doontaan dadkiinna iyo dalkiinna. ciidankan waxaan xasuusinayaa inay u dhaarteen inay dhowraan ilaalinta ammaanka dalka iyo dadka. sidaa darteed waxaan uga digayaa waxyeello shacbiga ay badbaadidiisa u dhaarteen ay soo gaadhsiiyaan. qof kasta oo dhib muwaadinka u geysta waa lala xisaabtami doonaa insha allah. sidoo kale waxaan shacabka u soo baxaya banaanbaxa nabadeed ugu baaqayaa inay duubaan dhacdo kasta oo tacaddi ah oo ay kala kulmaan ciidanka. muuqaaladaasi waxay noqon doonaan dhigaal iyo markhaati lagula xisaabtamo cid kasta oo waxyeello u geysata shacbiga sida nabadgelyada ah dareenkooda u muujinaya. muwaadin, kamarada taleefankaaga gacanta waa hubka aad naftaada ku difaacayso. sidaa darteed inaad duubto fal kasta oo xadgudub ah oo lagula kaco ama aad la kulanto iyada oo lagula kacayo qof shacaba. ugu dambayn, mudaharaadyada silmiga ahi way sii socon doonaan. qof kasta halka uu joogo ayuu ku muujin doonaa dareenkiisa si nabadeed oo silmi ah. doonista shacbiguna way guulaysan doontaa insha allah. sida uu ku caddeeyey waraaqaha oo akhriyayey guddoomiye Faysal, xukuumaddu waxay ogolaatay mudaharaadka in la dhigo. waxaanay ogolaatay in xafiisyada gobollada lagu qabto. sidaa darteed waxaan taageerayaasha labada xisbiga u sheegayaa inay mudaharaadku ku qabsoomi doono xarunta gobolka ee xisbiga waddani gobolka Maroodi Jeex ee ka soo horjeeda dugsiga Faarax Omar iyo xarunta guud ee cid. dhammaan taageerayaasha, xildhibaanada, mas-uuliyiinta xisaabta iyo taageerayaasha iyo qof kastoo muwaadin oo raba inuu ka qayb qaato mudaharaadka silmiga ah waxaa isugu iman doonaa labada xarumood: xarunta gobolka xisbiga waddani ee Maroodi Jeex iyo xarunta guud ee xisbiga waddani xisbiga wixii ee shacabka ku taala. dadweynaha ku nool 6 degmo waxaa la socodsiinaynaa in labada degmo ee Koodbuur iyo 26 Juun ay isugu yimaadaan xarunta guud ee xisbiga wixii. degmooyinka Macalin Haaruun iyo Gacan Libaax waxay isku soo urursan doonaan marka hore iyo xarunta guud ee xisbiga wixii. gobollada